نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الله u naxariistay cismaan cabdilaahi cigaal oo ku magac dheeraa cismaan hindi ayaa waxaa lagu aasay xabaalahan ku yaala dhinaca bari ee magaalada London oo ah xabaalaha ugu waaweyn ee ay leeyihiin dadka muslimiinta ee ku dhaqan dalkan Britain siiba magaalada London. xabaalahani waa xabaalo markaa timaado murugo ku gelinaya oo in badan oo muslimiini ay ku aasan yihiin waliba dad badan oo iyagu ka soo jeeda geeska Afrika ay halkan lagu aasay oo noqotay goobtii ugu dambeysay ee noloshooda markii ay laatay lagu aasay. cismaan cabdilaahi cigaal Allah u naxariistay ayaan waxaan ka waraystay noloshiisa wiilka waabtiga u yahay ee maxamed cabdi xasan oo ku magac dheer Dirdhabe oo inooga sheekaynaya taariikhdiisii waxaana kamid ah sida tan. بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ضائقة الموت. أبتغي عثمان عبد الله عقال إلهي نحريستي جنها كورابيو إلهي قبرك هاو نوره معي النبي محمد معي أنبياء الله كيير إن شاء الله دمان استجي مد وحي مد إسلام كأه أنتي كهريسي أنت كدم بيسوا. أبتغي عثمان عبد الله عقال وحكورنا شيء سنة كيكون يستقال بقول سيدي كنتن كي مقالة تشجع دلك إثيوبيا اسمها جوجلات كصومالي ده إثيوبيا. كون يستقال بقول يو تضبطنات كيبو مقالة هرجيسة دي بقصون نقضي أو كبر باري وكوكوري dugsigiisii dhexe iyo dugsigiisii sareba kaga baxay dugsigiisii sare wuxuu ka baxay dugsiga sare Faarax Omar markii dambena wuxuu u wareegay dugsiga Sheekh markii dambe 1900 sanadkii 1978 ayuu ka helay scholarship dalka Sweden ugu tagay walaalkii ka weynaa Saciid Cabdilaahi Cigaal oo isaguna markaasi markii laga soo noqday dagaalkii Soomaalida iyo Ethiopia ka goostay dawladii Maxamed Siyaad Barre sanadkii 1984 kiina wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay kaga dhawaaqay magaalada Stockholm ee dalka Sweden xafiiskii ururkii SNM sanadkii markii ururadii siyaasadda tartankii la galay ururkii la isxarayna wuxuu ku biiray xisbiga kulmiye laakiin ka hor inta markii xisbiga kulmiye madaxweyne Axmed Siilaanyo uu ka dhisay ku sugnaa magaalada tani London wuxuu kamid ahaa dadkii fikirka ku lahaa xisbiga kulmiye 2002 ilaa 2007 wuxuu kamid ahaa gudida fulinta xisbiga kulmiye wuxuu ahaa xubin kamid ah golaha dhexe isla markaana wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Hargeysa 2007 ba Allah u naxariistay abtigay Ismaan Cabdilaahi Cigaal iyo madaxweyne Siilaanyo markaa ahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ay siyaasadda ku kala aragti duwanaadeen wuxuuna go'aansaday markaa inuu ka diga rogto xisbigii udub ee xukuumadda hayay oo ku biiro isla maalmo kadib waxa loo magacaabay inuu noqdo madaxii ololaha doorashada ee xisbigii udub sanadkii 2010 markii ay doorashadii madaxtooyada Soomaaliland dhacdayna lagaga adkaaday doorashada xisbigii uu ololaha doorashada uu maamulayay wuxuu go'aansaday abtigay inuu siyaasadda dibadda ka joogo ilaa maanta oo Allah u naxariistay aaskiisii loo dareerayna siyaasadda shuqul kuma lahayn uuna ka madax banaanaa wuxuu ku biiray dhinaca ganacsiga waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wa kullu nafsin daa'iqatun assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaanu la dhaxgalay mikrofoonka dadka aas ka soo qayb galay oo iyagu ka kala yimid meelo kala duwan. bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta halkan waxaan ku aasnay cismaan hindi waxaan ka baryaynaa ilaahay nin reer Soomaaliland oo siyaasi ah ilaahay inuu jannadii ka waraabiyo isaga iyo wixii islaamaba inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ehelkiisii iyo qaraabadiina waan ka tacsiideynaya. bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu alayhi wasallam inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta waxaan taaganahay xabaashii Cismaan Cabdilaahi Cigaal oo ku magac dheer Cismaan Hindi run ahaantii walaal wanaagsan buu ahaa oo dadkeena iyo dalkeenaba dhinac kastaba saameyn badan buu ku lahaa siba xaqa dimuqraadiyadda
iyo dowladinteenna dalka Somaliland wax badan buu ka soo qabtay xisbiyadii udub iyo kulmeebo uu ka soo shaqeeyay xagga ganacsigana run ahaantii magaalada bilic fara badan buu ku soo kordhiyay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay waxaan uga baryayaa jannatul firdawsa in ilaahay ka waraabiyo bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta waxaanu xabaashiis joognaa Ismaan Cabdilaahi Cigaal Ismaan Hindi ilaahay waxaan uga rajeynayaa inuu naxariis janno siiyo wuxuu ahaa siciin buu ahaa dalkiisa iyo dadkiisa soo shaqeeyay waxaan saameyn fara badan ku leh bulshada reer Somaliland waxaan ilaahay uga baryayaa inuu qabriga u nuuro samir iyo iimaan uu ka siiyo ummadda reer Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim waxa aan tiiraanyo aad geeri naxdin la ayaa maanta dhacday oo waxaan halkan u joognaa aaskii Ismaan Cabdilaahi Cigaal Ismaan Hindi oo aanu aad iyo aad saaxiib u ahayn dhallinyaranimadayadii ilaa maalintii uu jigjiga ka soo wareegay Hargeysa aanu isku baran ku saaxiibnay iskuulka secondary-ga Faarax Umar wada galay ayaa waxaan halkan taasi tiiraanyo looga dirayaa ehladii iyo qaraabadii iyo xaaskiisii bismillaahir rahmaanir rahiim Ismaan Cabdilaahi Cigaal waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ninkaasi wuxuu ahaa nin aad iyo aad mudakar u ahaa kullu nafsin daa'iqatul mawt ilaahay u naxariisto dhammaan ehelkii uu ka tagay oo adduunyada kaga tagayna waxaan leenahay samriye iimaan ilaahay naga siiyo waa wax lama huraana ninkaasi se kulley dalka Somaliland wuxuu ku lahaa taariikh wanaagsan haddii halgankii ahayd iyo haddii ay tahay intii dalku dawladda ahaaba inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maalinba ninba maartay hooyanaya oo wada la hayo weeyaan oo la istaba socdo oo dhamaanteen waan dhimanaynaa maanta waa Ismaan Cabdilaahi Cigaal marka walaalkay baan aniga ahaa saaxiibkay buu ahaa aad iyo aad baan familygii ballaadhnaa iyo caa'iladii uu ka tegey ayaan uga taxsiinaya iyo qaranka Somaliland bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halkan waxaan ka taxsiideynayaa marxuum Ismaan Cabdilaahi Cigaal oo ku geeriyooday magaalada London maalintii shalay ahayd waxaan ilaahay uga rajeynayaa inuu jannadii ka waraabiyo ehelkiisii iyo qaraabadiisiina uu samiri baan ka siiyo iyo dhammaanba dadka reer Somaliland inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna raaji'uun waxaan halkan ka taxsiideynayaa Ismaan Cabdilaahi Cigaal ilaahay naxariis jannaha siiyo ilaahay ha u naxariisto ilaahay su'aalaha u fududeeyo janna firdawsa ilaahay ha geeyo marxuumka ilaahay ha u naxariisto wax badan baanu isnaqaanay nin wax badan lagu xasuusto ahaa kiisii assalaamu calaykum waraxmatullaah bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Ibraahim Ducaale Saleebaan Tallaabo waxaan halkan ka tacsiyadeynayaa marxuum Ismaan Cabdilaahi Cigaal waxaan leeyahay Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyaadil janna ilaahay ha u naxariisto ilaahay dambigiisa ha dhaafo waxaan si gaara tacsiyadan uga tacsiyadeynayaa dhammaan reer Cabdilaahi Cigaal iyo xaaskiisii Hindi Cabdi Muuse waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo isagana jannatul firdaws al-a'la ilaahay ha geeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan tacsi tiiraanyo la runtii u diraynaa xaaskii iyo qaraabadii Ismaan Cabdilaahi ehelkii meel kastoo ay joogaan iyo dhammaan shacbi weynaha reer Somaliland Ismaan wuxuu ahaa saaxiibka dhalinyaradu ahaa saaxiib gaarana waanu ahayn marka tacsida maanta ilaahay sabir iyo iimaan ha naga siiyo Axmed Yuusuf Xirsi baan ahay waxaan tacsiyadeynayaa reer Cabdilaahi Cigaal iyo reer Siciid Liibaan oo dhan iyo reer Sharmaarka Siciid intaba ninka naga dhintay ilaahay naxariistii jannaha siiyo iyo Hinda Cabdi Muuse oo ooridiisii ahayd iyo inamadiisii iyo hablihii ay walaalaha ahaayeen iyo Nuux Cabdilaahi Cigaal iyo Cali Cabdilaahi Cigaal iyo Shukri Cabdilaahi Cigaal iyo Caasha Cabdilaahi Cigaal iyo Nimca Cabdilaahi Cigaal iyo Sitiin Cabdilaahi Cigaal iyo Maryan Cabdilaahi Cigaal ilaahay sabir iyo iimaan kulligeen hay naga siiyo nin baa inaga dhintay dadkuna wuu dhimanayaa kullu nafsin daa'iqatul mawt ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. waxaan u dhiibay بسم الله الرحمن الرحيم anigoo magacayga la yiraahdo maxamed xasan waxaan tacsiideynayaa Cismaan Cabdillaahi Cigaal waxaan leeyahay dhammaanteen sabir iyo iimaan Allah inaga siiyo Cismaan nin wanaagsan buu ahaa waxaana waa dadku waa la wada dhimanayaa marka waxaan ka tacsiideynayaa dhammaan reer Cabdillaahi Cigaal iyo dhammaan ummadda Soomaalida oo dhan بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan tacsiyo uga darayaa walaalka Ismaan ilaahay ha u naxariisto Ismaan Cabdillaahi oo maanta aanu halkan ku aasnay adoon wanaagsan buu ahaa waxaad ka garanaysaa inta dad u timi iyo halqad u timi maanta halkan ilaahay godka ha u nuuriyo ilaahay qoyskii iyo ubadkiisii iyo oriyeysii ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo ummadda reer Soomaaliland waxaan ka codsanayaa ciddii wax ku lahayd ama wax ka tirsanaysay inay cafido oo saamaxdo oo walaalkeen u duceyso halkaas ayna wada hurran halkaas aynu wada tagaynaa marka waxaan ka codsanayaa qof walbaaba oo ka dambeeya maanta inuu isaguna uu intaa ugu deeqo aad iyo aad baan uga tacsiideynayaa qoyskii hinda xaaskiisii iyo caruurtiisii aad iyo aad baan uga tacsiideynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت بما كسبت رهينة halkaas ayuu qof waliba aynu maanta arkayna ku dambayn doonaa dadkii shalayta socday ee saaxiibadeen ahaa ee aynu la sheekaysanaynay maanta marka imika halkaasi Cismaan u dambeeyeen geeridiisii taagannahay Allah u naxariiste ayaynu iska ilaawnaa marka ilaahay toobad hayna waafajiyo sida fiican hayna waafajiyo waxaan ka tacsiyadeynayaa Cismaan oo nin weyn oo qaali ahaa ummadda reer Soomaaliland qaali ku ahaa waxaan ka tacsiyadeynayaa faamiligiisii reerkiisii hinda iyo caruurtiisii iyo ummadda reer Soomaaliland oo dhan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون وحنا تعسي حلقة نقدر درينا تعسيدين يا حلقة تعسي قدر عثمان عبد الله سحردي عقال إيو وأنا قد تعسيدين قويسكي قرابتي وكتجي إلهي نحرسي جناك ورابيو نيوناكسن أو احترام أبوها إلهي جندي فردوسها إن شاء الله بإذن الله كريم قويسكي سي قرابتي سين إلهي سمري ما نقصي بسم الله الرحمن الرحيم مقعي إبراهيم دعالة سليبان تلابو waxaan halkan ka tacsiyadeynayaa marxuum Cismaan Cabdillaahi Cigaal waxaan leeyahay Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyaad al-janna ilaahay ha u naxariisto ilaahay dambigiisa ha dhaafo waxaan si gaar ah tacsiyadan uga tacsiyadeynayaa dhammaan reer Cabdillaahi Cigaal iyo xaaskiisii Hinda Cabdi Muuse waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo isagana jannatul firdaws al-a'la ilaahay ha geeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت waxaan halkan tacsi aan uga dirayaa ilaahay naxariis jannaha ka waraabiye Cismaan Cabdillaahi Cigaal oo nin ku weyn ahaa ummadda reer Soomaaliland iyo qaranka Soomaalilandba ilaahay waxaan uga baryaynaa in isaga naxariis jannaha uu ka waraabiyo awlaadii iyo oriyii uu ka tagayna samir iyo iimaan iyo ummadda reer Soomaaliland oo dhanbana uu ka siiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومقعي واسماعيل عمر علي وحان تحسينيا habtigay reerkiisii iyo walaaladii ma taxseenaya geeriduna waa xaq weyn waxaanu ducaynaa inuu ilaahay jannada ka waraabiyo assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد إنا لله وإنا إليه راجعون halkan waxaan tacsiid tiraan yar uga dirayaa ehelkii iyo qaraabadii iyo faamligii Cismaan Cabdillaahi Cigaal ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay naxariis janno siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay qabriga u nuuro ilaahay waxaan ka baryaynaa in faamligii iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo dadkii wala dhashay iyo caruurtiisiina samiriye iimaan saadiqa ka siiyo loo duceeyo qof waliba duca maanta duca inooga baahan yahay inaynu ducayno qof kasta meelku jooga loo duceeyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا ما نتكلم السجون نمد أرين مرجلة أسكي عثمان عبد الله عقال أيان هالكن شوقنا ومشان شوقنا واللندن ويان
marka ilaahay isagana ha u naxariisto taariikhdiisa iminka kama sheekayn karo wuxuu ahaa nin dadkiisa saamayn weyn ku sameeyey dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqaalaha dhinaca arrimaha bulshada intaba marka ilaahay naxariis jannaha siiyo ka waraabiyo dadkii uu ka tegey ehelkiisa iyo qaraabadiisa samri iyo iimaan ilaahay ka siiyo asalaamu calaykum sidaa daawateenna wuxuu ahaa tacsidii ay dirayeen dad fara badan oo iyagu aaska ka qayb galay waxaan leeyahay qoyska anigoo ah cabdilaahi maxamed cali ku hadlaya magaca reer maxamed cali ibraahim waxaan dhammaantiin leeyahay qoyskii iyo asxaabtii iyo qaraabadii uu ka baxay iyo guud ahaanba qarankii uu ka baxay ismaan cabdilaahi cigaal waxaan leeyahay inaa ilaahi raajicuun allah u naxariisto waxaa la yidhaha mudma'inna dadka heerka sare gaadhay ilaahay had iyo jeer xusuusan waxooda ay shaqaynayaan uu yahay wax ilaahay raalli ka yahay ayaa nafsul mudma'inna ayaa iyagu gaadhay taa inaan higsanno weeye ta ugu yar een hadda ku jirna waxaa weeye nafsul lawaama midda markaad khalad samaysaba kaa celinaysa iseen inaan gaadhno kabacdina aan u gudubno inaan gaadhno midda mudma'innada ilaahay raalli uu ka yahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dadkan inay nafsul mudma'inna ay noqdaan kuwa ilaahay jannada ugu bishaarayna inay noqdaan ilaahay xawdka rasuulka inuu ka waraabiyo qabriga ilaahay inuu waasiciyo innagana ilaahay jidka xaqa intaas markaan idhaahno waxaa looga baahan yahay innaga maxaa laynooga baahan yahay dadkaa inaan u ducayno inaan haddii aan wax ku lahayn xaq ah ay inagu lahaayeen inaan ka cafinno dayn haddii aan ku lahayn ay dayn inagu lahaayeen inaan daynkii cafinno ama aan dadkii ka bixinaya haddaynan cafiyen aan weyddiisanno nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray asxaabtiisa qofka walaalkiina saaxiibkiin dayn ma lagu leeyahay asxaabtu weydiinaya markii la yidhaha ku tuko haddii la yidhaahdo dayn baa lagu leeyahay kuma tukan jirin wuxuu dhihi jiray daynka ha la bixiyo intaana ku tukanin ilaan tukashadiisu waa raxmad waa naxariis maalin maalmaha ka mid ee nin saxaabiga ayaa waxaa la yidhi wuxuu yidhi dayn ma lagu leeyahay 2 dirham baa lagu leeyahay la yidhi kuma tukanaya buu yidhi nin asxaabtii ka mid ah ayaa yidhi anaa ka bixinaya ku tuka yaa rasuulallah markaasuu yidhi mar baad bixinaysaa marka ugu horraysa en heli karo ayaan bixinaya ayuu yidhi wuu ku tukaday maalintii ka dambaysay ayuu ninkii qaabilay oo wuxuu yidhi war ma bixisay daynkii markaasaa wuxuu yidhi shalay keliya ka soo wareegtay wakhti kama soo harin waan bixinayaa maalintii ka dambaysay ayuu bixiyey markaasaa wuxuu yidhi u tegey waan bixiyey buu yidhi wuxuu yidhi nabigu calayhi salaam baradallaahu jildaka kamaa baradta jildahu yacni sida aad saantiisii aad u qaboojisay ee qabriga u qaboojisay adigana ilaah kuu qaboojiyo deynku waa sidaa deynkii ha laga cafiyo wixii kale oo dhan ha la cafiyo wixii xaq ahaa oo dhan oo laga qabay ha la cafiyo ha la saamaxo innaga nafteenna ayaa isu nimid waxaa ugu yareen samayn karnaa inaan horta isa saamaxno labadii maanta iska soo horjeeday wax kale iskaga soo horjeestay adduunya ay dhex martay talo ay dhex martay siyaasad ay dhex martay wax kale ha la iscafiyo innagoo iscafina halkan aan ka tagno aan iscafino anugu ninkii wax iga qabayo waan ku cafiyey mee cafiday dhammaantiin aynu iswada cafinno sidaa innagoo iscafin midda kale aan doonayna waxaa weeye inaan xusuusanno minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum wa minhaa nukhrijukum carradii waan idinka abuurnay minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum wakaa walaaladeenni inala joogeen naqaanay saxaabteen waa lagu celiyey taasa ayna sugaysa innaga taas waa inaan xusuusanno balaanka inooguma jirto nin waliba wuxuu leeyahay waxaa qabo guri dhiso gabadh guurso markab dhis diyaarad halkaa wuxuu yidhi nabigu binu aadam wuu gaboobayaa buu yidhi maxaa la gaboobaya buu yidhi amal qorshaha inooguma jirto balaanka halka inooguma jirto dib aan u fiirsanno yacni 5% markii aan balaankeenna dhammayno aan mar xusuusanno hal mid keliya aan 9 hal mar aan ku darno balaanka meeshan aan xusuusanno maxaa kaa dambeey yacni marka waxaa weeye binu aadamku waxaa weeye markaad khalad samayso haddaad noqoto ood xusuusato ood isa saxdo markaa ilaahay wuxuu ku waafajinayaa khayrkiisa wixii kaloo dhan ee soo samaysa uu kaa dhaafaya laakiin maxaa loo baahay inaad xusuusato ood xusan run la timaado oo tooba runa la timaado ood kaga rumayso wixii horoo dhan ilaahay waa kafuuru raxiim uu ku dhaafayaa marka sidaa aan yeelno aan iscafino qorshaha aan ku darsanno meesha balaanka aan dhisayno adduunyada ah
in yar aan ku darso hal mid oo keliya aan ku darsanno intaa ayaan idin leenahay wax kale oo markaa waxaa jirtay maanta markaan imid waan garan waayey ciiddii ramadaankii waxaan ku aasinay nin masaajidka yacni Finsbury Park ka bixin jiray 15 sano 20 sano dadka afurin jiray cumar baa la dhihi jiray xaaji cumar sheekh cumar waa taqaaniin halkaasaan ku aasinay marka waxaan garan waayey imsaa ka dambaysay ramadaankii maxaa naga jira 2 bilood 3 iyo 2 bilood iyo bar markay u badan tahay waan garan weynay waa buuxsan hadda wakaa yani waxa weeye wakaa saasaa loo socdaa raggii aan isnaqaanay 25 sano ka hor maanta waan isgaran weynay waa la wada gaboobay haddii geeri gudayso maxaa ku daynay gabow waan ku daynay marka dib aanu noqon aanu xisaabtanno aan iscafino ilaahay khayrka hayna waafajiyo ilaahay dadka ha u naxariisto ilaahay xawdkii jannada ka waraabiyo ilaahay qabriga ha u nuuriyo ilaahay qabriga ha u waasiciyo ilaahay jannatul firdaws ha geeyo ilaahay innagana hayna mariyo jidka xaq hayna garansiiyo ilaahay jannatul firdaws waan ka dambeyn wax yar baan ka dambeynaa in dhamaanteen hayna geliyo وصلى اللهم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ادعوا ولا الذين بارك الله السلام عليكم الله يجزاك الله خير كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة 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 الموت ثم إلينا ترجعون